السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرة ورقصان دولة شيء قيمها هي قدرين تنقبض الكسر وبعضها وركينا صباح نما شبكة دقاشان ودني سماري تي في أنا أقول حسين حسن عدنا وايدي والربي ياخذ بضا وركا عدوات تنادي الله وتلا قدره وحقيبك فضل هدي أذكر عصبت هاي شبكة وركا قاشان ودني سماري تي في وعدك عصرنا إن تسكربت شيرت مرة وايدي كلام وربحنا ذلك كان يسوق قلنا رئيس وزراء حكومة الدولة الفدرالية كالصومالية مدن محمد حسين روبلا أيا سود ويا شركة وطنجة أرماد دور شركة كوكب سومي دون عشان يتوقع بيشنا مقالة قروي ما بدولة قرات كبوتلانا قرشة بيشة عالم كيد جسد دور شركة كالصومالية يو حقيه يقدم بي الصومالية دولة قرات كبوتنا أيا سود ويا شركة لوجو باقي عشان يتوقع فرايا إنه كدعو مقالة قروي qodobada kale ee dawladda haddii Allah wadada qadaran waxa kamid ah waxa lagu kala adkaaday siyaasadda arrimaha dibadda ee taageerada beesha caalamka ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka dowladda dalka Norway ayaa soo dhaweysay wararka ku saabsan wareegga cusub ee wadahadallada ee lagu qabanayo Garowe senator Ilyas Ali Hassan ayaa soo dhaweeyay muwafaqa maamulka Puntland iyo shirka uu madaxweynuhu iskugu yeeray maamulka gobolka dalka Soomaaliya qodobada iyo qodobo kale ayaa dawladda haddii Allah wadada qadaran Xuseen Xasan Cadana waa idin waramaya haatan ku soo dhawaada warkeeni oo faahfaahsan رئيس وزراء حكومة الدولة الفدرالية الصومالية مدن محمد حسين روبلي ayaa soo dhaweeyay shirka watashiga ay arrimaha doorashooyinka ee ka qabsoomi doona 15 bisha ku jirnaa Febraayo magaalada Garowe ee dowlad goboleedka Puntland ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumadda ay dadaal mug iyo miisaan leh ku bixinayso fududeynta shirarka iyo sidii looga dardargelin lahaa fulinta heshiisyadii September la gaaray 2020 hanaanka doorashada sidoo kale dalka inuu meel mariyo labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa tilmaamay in doorka wax ku ool ah ay qaadanayso xukuumadda ay hogaaminayo kaasi oo ku saleysan in soo dhawaashaha aragtiyada kala duwan ee fulinta heshiisyadii doorashada ee hore loo saxay iyo sida looga mid lahaan lahaa marxaladaha muhiimka ah ee geedi socodka siyaasadda dalka Soomaaliya qorshaha beesha caalamka ee dejisay doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale xogii ugu dambeeyay saacadihii ugu dambeeyay beesha caalamku waxa ay wadeen kulamo laga hadlayay xaaladda wadanka Soomaaliya iyo sidoo kale doorashada Soomaaliya si ay ku qabsoon lahayd xogtii ugu dambeysay natiijada ka soo baxday shirarka beesha caalamka iyo sidoo kale farmaajo u dhaxeeyay iyo talo la soo qaatay in استراتيجية أقبلان بيرنا وحال لسكو أفكرتي كو إن مقدسة لسكو يمادو شر دقة أو لبي توان كبيشة فبراير ولا بكون قوي لبعض إلا لبي توان كبيشة فبراير ولا بكون لبعض وجود بينتي أو سيد حل لوجا جرب يعني خلاف وجود بحي ما شاء الله صوج هربي قامة دقة قامة دنوا عبور دورشة وضع كسوماليا تصدق إن ما دام الله يلين بالعكس الدورشون بقول كي بس عشان إن أرجوين كلا صاع اليو سيدا هرنا نبض كل احتمال كي كنتر إرجاع أفر إن قد يدا قد يدا معمول دورشة السومالي لأن أي بقول كي بقول تاي وحنا صوح ولا يدونا بدين رئيس الوزراء كحكام كذلك أو كنتن وصوح ولا يبود يسيدا كلا كنتن وصوح ولا دونا قدوميها أغل كسرية عبد حاشي عبد الله dowlad goboleedka Puntland ayaa soo dhaweeyay shirka lagu baaqay 15 bisha Febraayo inkastoo aan la tashanbayn in Garowe lagu qabto maadaama uu dhamaaday muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ku tilmaamayna in ay shirkaasi lagu qabto Muqdisho aanan kaasoo ka soo qayb galno saamileyda siyaasadeed iyo beesha caalamka dowladda dalka Norway ayaa soo dhaweysay wararka ku saabsan wareegta cusub ee wadahadallada ee lagu qabanayo Garowe waxay si xog leh miisaan u taageertay baaqi midowga Afrika ee dhammaan hogaamiyaasha Soomaaliya ay si wax ku ool ah uga wada shaqeyn lahaayeen si loo xaliyo caqabadaha taagan in laga ogolaado qabashada doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha wadanka Soomaaliya senator Ilyas Ali Hassan ayaa soo dhaweeyay muwafaqa maamulka Puntland iyo shirka uu madaxweynaha iskugu yeerayo maamulka gobolka dalka Soomaaliya oo ka furmaya magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland waxa uu soo dhaweeyay muwafaqa Puntland in shirka lagu qabto xamar maadaama uu dhamaaday muddo xileedka madaxweynaha farmaajo waxaana soo jeedinayaa in dhammaan saamilada siyaasadeed ay ka wada qayb galaan shirka kuwaas oo ay ugu horeyntii gudoomiyaha labaad ee aqalka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta bulshada rayidka waxaa lagu kala adkaaday siyaasadda arrimaha dibadda ee taageerada beesha caalamka ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya madaxda qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa go'aan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay
caawa lagu sheegay inay aad u taageerayaan shirka ka furwa dib uga furmayo magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland isla markaana looga arisanayo khilaafka hareeyay doorashada wadanka Soomaaliya beesha caalamka ayaa markaas garab taagan Soomaaliya si ay doorashada wadanka Soomaaliya ku qabsan lahayd xasilooni beesha caalamka ayaa maanta caawa soo saartay qoraal ku aadan in qaramada midoobay ay si gaar ah u soo dhaweynayaan shirka madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku baaqay inuu ka dhaco magaalada Garowe caasimadda maamulkaasi Puntland. Security Council were briefed by Special Representative to the Secretary General James Swan on the situation in Somalia. The members of the Security Council welcomed the efforts made by the leaders of the federal government of Somalia and the federal member states to find agreement on the implementation of the 17 September electoral model. They noted the progress made, but expressed concern that the talks in Dusamareb ended without agreement. They commended the role of the African Union in promoting dialogue between Somalia's parties. The members of the Security Council called for Somalia's leaders to resume their dialogue urgently and work together in the interests of the people of Somalia to reach consensus on the arrangements for the conduct of inclusive elections with a view to holding them as soon as possible, and in that regard noted the announcement of further talks on the 15th of February. The members of the Security Council condemned terrorist attacks by Al-Shabaab. They reaffirmed their support for national sovereignty, territorial integrity, and political independence of Somalia. dhammaantiis ba Axmed Madoobe ilaa xilligu soo galay labadii bishii 10aad 2012 iyo bisha maanta labadii bishii 8aad 8 bishii 2aad 2021 Axmed Madoobe inta dalka wuxuu ku haystay sharci la'aan wuxuu ku haystay diin islaamna kuma haysanin dastuurna kuma haysanin wuxuu ku haystay xoog uu kaashanayo dawladaha shisheeye oo saddex dawladood dawladii TPLF Kenya iyo Imaaraat asagoo Imaaraadka wakiilkiisa ilaa hadda sirdoonka ugu weyn ee Imaaraat imaanayay Kismaayo isla markaas degaya qasriga badda waxaan leeyahay dadka reer Jubbaland guud ahaan meel kastoo joogaan dibad iyo gudaba waa inay isku tashadaan ciidan boo sugayna ma jirto waqtigii Axmed Madoobe iyo taariikhdiisa iyo xil uu hayana ma jirto cid uu mas'uul ka yahana ma jirto dastuur ku haystana meesha ma jirto waxaan ugu baaqayaa dadka deegaanka degan oo hadda dhibaataysan ee habeen walba dadka laga leynayo ciidamada hadda dhibaataysan oo ayagana noo soo qaylinayo oo meel u baxaan la waxaan u sheegayaa iyo kuwa dibadda jooga reer Jubbaland horta ma aha Kenya reer Jubbaland ma aha Ethiopia reer Jubbaland waa dad Ilaahay ku abuuray meesha 1960kiina dawladnimada qaatay Jubbaland waxay u baahan tahay isbedel siyaasad oo dhan walba ah ugu dambeyn waxaan aad ugu faraxsanahay maamulka xilligan ka jiro gobolka Gado iyo shacabka sida ay iskugu duuban yihiin maadaama ay soo mareen marxalado kala duwan mahadsanadiin waa Colonel Aris ragii fara ku tiriska ee Jubbaland zero ka soo bilaabay ragii ku jiray bana ciidanka Jubbaland saddex Facebook ahaa markii la soo howlgalayay Kamanga 1 iyo Kamanga 2 iyo afartanaad buu ahaa asaga ciidan ugu badnaan konton askari oo diif joogay oo jabhad ahaa oo la soo kixiyay horta Axmed Madoobe ahaa afartanaad kuma jirin magaciisana Kamboni baa la dhihi jiray boorkaas maxalaal ba ma waxaraan taas isma weydiinay waxa la yiri hal booli niri xalaala ma dhasho Axmed Madoobe asalkiisa oo dhan wuxuu ka sameeysan yahay wad ogsoontiin waa ku xogeenkii Farax Godane ninkii ku xogay way Axmed Godane ninkii ku xogay buu ahaa Godane maxalaal buu ahaa asal maxaraan buu ahaa beesha caalamka haday Godane la shaqeyn jirtay ha noo sheegto Jubbaland warshad hubka lagu sameeyo ma taalo Godane rag baa hubka u keeni jiray Axmed Madoobe ninkii lagala tashan jiray buu ahaa Axmed Madoobe Godane badday
warbixintii ay kala socotaan shabakada wararka gaashaan wadani Soomaaliya TV aniga Xuseen Xasan Cabdi waa idin waramayay waa naga inta